Somali Hits TV. tobanka habeen ee u dambeeya bisha ramadaanka waxaa ku jira habeen aad u qiimo badan. habeenka laylatul qadarka wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood. waxaa la rabaa qofka inuu habeenkaasi ku dadaalo. waa habeen qiimo badan, wuxuuna ku jira habeenkaasi habeenada kisiga ah 22-ka 23-ka 25-ka 27-ka ama 29-ka. dadka waxaa looga qariyay inay khayrka ku dadaalaan. waa habeen barakeysan, waa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey. cibaadada habeenkaasi aan la imaano way ka fadli badan tahay 1000 bilood ayay ka fadli badan tahay anagoo cibaadeysanna halkaas cibaado kaliya ee habeenkaasi ilaahay qofka u waafajiyo. iimaanan waxtisaaban qofkii ku tukada, iimaana la imaada, ilaahayna ka fasha ajir, gufira lahu maa taqadama min dambihi, waa loo dambi dhaafaa dambigiisii wixii hore oo dhan uu dambi qofka uu sameeyey waa loo dambi dhaafaa. xadiidka waxaa soo saaray Bukhaari iyo Muslim. waxaa la rabaa marka habeenkaasi inaan ku dadaalno barakeysanay sharafta badan, salaatuleylka inaan ku dadaalno, inaan masaajidka joogno ku ictikaafno sida nabiga sallallahu alayhi wasallam sameyn jiray. 10ka habeen ugu dambeeya bisha ramadaanka wuxuu ku ictikaafi jiray masaajidka oo kama soo bixi jirinba isagoo raadinaya habeenkaasi laylatul qadarka. inaan ducada badino oo ilaahay u dhawaano, camal kasto wanaagsan inaan sameeyno ayaa loo baahan yahay. ducadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu baray Aisha radiyallahu anha habeenkaasi inay badis waxay ahayd: Allahumma innaka cafuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Somali